marka ugu horeeya waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu soo wada ajiibay isku keen wada keenay hal goob oo aynu isku weydaarsanayno aragtida ah sida aynu waddankeena iyo dhalinyarada u horumarin lahayn runtii waddankeena waa ka wada warqabtaano dhalinyarada Somaliland kacdoon bay soo bilaabeen kasoo bilaabay 1982kii 20kii February markii ufo dhagax tuurka ay ka sameeyeen iskuulkeena halkan majaarkeena Faarax Omar dhalinyaradaas maalinta waxay ka dagaalamayeen waxay ahayd inay xorriyad ku noolaadaan oo xorriyadda maanta Somaliland haysato Afristo ka sanadood aynu ku naaloonayno waxa keenay dhalinyaro reer Somaliland oo 20 jira oo iyagoo ilmeynaya qoriga qaatay oo rejiimkii la dagaalamay Siyaasi tii markii ku soo guuleysanay halkan ku soo guuleysanay 1999kii waxaynu xoreynay waddankeeni oo dhalinyarada Somaliland ay xoreeyeen jabhadii SNM loo oran jiray ay xoreysay kadib waxaynu bilownay dawlad dhiskii marka dawlad la dhisayna hadii gooraalada guri inoo dhisnaa ma jirin oo meel dal isugu yimaado may jirin marka odayaashii waqtiga iyo dhalinyaradii halkan ka soo gashay waxa lagu heshiiyay sidii dadka reer Somaliland horta loo walaaleyn lahaa halkaas horta ka soo bilaabantay taladii dhalinyarada Somaliland lagu guuleystay ilaa maanta ay ka yihiin madaalayaal qofka dhalinyarada reer Somaliland ee jooga higsigiisu wuxuu ka soo bilaabmaya dhagax tuurka 1982kii ka soo bilaabmaya ufo iskuulka Faarax Omar intaa kadib waxaan la soo kacakufaynay oo 1999kii ilaa maanta aynu la soo daaladhacaynay waxay ahayd waxa weeye isbedelkii waddanka ku yimaanay maanta hal muhiim waxaynu gaarsiinay halkii ugu dambeysay oo ahayd inaynu aqoonsigii aynu in badan naawilaynay aynu waddanka keenay taasna dhalinyaradu adkaysigeediina way lahaayeen dulqaadkeediina way lahaayeen garashadeediina way lahaayeen oo dadka reer Somaliland waa dadka ugu kartida iyo garashada iyo aqliyada badan la Soomaalida markaad eegto waayo dadka waddan caynkaas ka soo bilaabay dhalinyaro oday suldaan caaqil dhamaantood gacmaha isqabsaday halkaas soo gaarsiiyay runtii waa wax lagu bogaadiyo sidii baanaynu madaalayaal u nahay arrintan crisis-ka dhalinyarada haysta haddaan soo noqdo caqabaduhu way iska badayeen oo aniga idin soo sheegay 1999kii Hargeysa cuntooyinkan iminka yaala xitaa laguma cuni jirin waxa dhex yaalay oo kaliya waxa timir iyo biyo iyo waxay ahayd qamadi ninkii jiray iyo waxa garanaya oo dhalinyaradii waqtiga joogtay dhalinyarada Somaliland sideedaba saddex bay u qaybsantaa qolada 1998kii kacdoonka bilowday oo maanta iska gabagaba oo iska rag waaweyn noqday oo dhalinyaradii ka baxay iyo jiil dhaxoo la soo bilowday 1999kii iyo kacakufkii waddanka oo iyaguna adkaysi badan iyo dadaal badan soo muujiyay halka soo gaarsiiyay iyo dhalinyaro barwaaqo sooranka ku dhalatay oo dhalatay gedihii 2000 iyo wixii ka dambeeyay oo iyagu dhibaato arag waana kuwa hadda iyo goolaale haddana waddankeena iminka u taagan difaaciisa u taagan aynu isbedelo u taagan hadiya habeen cadawga ka difaacaya manay arag dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay Afristo sano ka hor marka iminkana waxaynu taagannahay halkii guntiga gabagabada inoo ahayd oo ah dhamaanteen inaynu gacmaha isku wada qabsano sidii aynu madaalayaasha u ahayna aynu ahaano research-kana intiisii badneed fahmi baa kasoo sheekeeyay oo ku noqon maayo arrintana arrin ay intaanu bilownay aanu ka dhaqaaqnay noqon maysa waxay noqonaysaa mid aynu caafimaad ka samayno engineering ka samayno arrimaha kale bulshada sidee u dhan tahay aynu ka samayno marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin ajiibkaan soo ajiibteen inaan la shaqaysaano oo idinku codsanaynaa madaxda Somaliland waxaanu ka codsanaynaa hoggaanka iminka jooga inay mar walba dhalinyarada dhiirigeliyaan oo dhalinyarada Somaliland hoggaanka dalka kamid ah inaanay noqon kuwa naftooda hormariyay dhalinyarada Somaliland oo dhan iyaga sugayaan inay garab galaan hoggaaminta ku garab galaan ay wax ku biiriyaan oo tala iyo arrin ay kula soo noqdaan ma aha haddii wasiir laga dhigay inaad ka dhumato dhalinyarada laakiin waa inaad hoggaamiyo hormood u ah sidii Maxamed Xaaji Ibraahim waddanka dhan hormoodka ugu ahaa madaxweynayaashii iminka ka dambeeyay hormoodka ugu ahaa idinayna siyaasadda iyo arrimaha kale bulshada hormood ugu noqotaan bal idinka rabaa aad iyo aad baa mahadsantihiin